بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad ayaan idin salaamayaa asxaabtayda quruxda badneed sharafta lahayd sideed tihiin ma wanaagsan tihiin alxamdulillaah anaga waa fiicannahay ilaahay subxaana watacaala waxaan inooga baryayaa qof kasta wuxuu tabanayo oo maaragtay dhibaato ilaahay subxaana watacaala ka qaado wax kasto khayr oo rajaynayaan ilaahay subxaana watacaala la kulmiyo allahumma aamiin intaas kadib waxaan aad iyo aad uga cudur daaranayaa inaan markasta dhaho waan soo waxbaan samaynayaa haddana aan soo daaho ilaahay ma qadarin qof kasta wuxuu yimaadaa marka maaragtay ilaahay u qadaro uu maaragtay ilaahay keeno meesha tan wax kastana xukun ilaahay iyo maaragtay qorshe ilaahay baa lagu yimaadaa marka ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu maaragtay arrimaha oo dhan inoo wada fududeeyo wixii sharana sharkooda ilaahay naga qabto wixii khayrana khayr ilaahay inoo fududeeyo allahumma aamiin intaas kadib waxaan rabaa insha Allah inaan in la wadaago sida dharka looga saaro fasakha ama rinjiga dharka rinjiga leh haduu yahay baatiyada haduu yahay dharka kale oo maaragtay caadiga dharka fasakha marka la dhaqo rinjigu ka soo baxo sida rinjiga looga saaro waan ogahay wax sida u weyn ma aha laakiin waxa laga yaabaa aniga way anfacdaa in idinkana intii daawato ilaahay u qadaro inay daawato inuu anfaco hadda ka hor YouTube channel aan lahaan jiray aan tirtiray baan saasoo kale u soo galiyay kaas markaa uu tagay haddana waxaan isiri maalin dhaweetan waxaan Google-ka ku qoray sida dahabka loo dhaqo markaas waxa ii soo baxday video aan hadda ka hor sameeyay ii soo baxday dad badan oo aan arko maasha Allah dad badan dhowr qof aan kala duwan waxay ugu dhaan walaal waan ka helnay saad uga u samaysay markaas aan isiri oo intan yarna maad gelisid maaragtay sida dharka fasakha looga saaro ama dharka rinjigu ka baxo marka baatiyada ugu badan dharka rinjigu ka baxo maradii inaad hal mar ka saartid iyo in waligiis uu ku jiro oo markasta dharkii aad ku dhaqdid kaaga fasakhamada waa wax ma fiicna marka waxaan sameynayaa laba dirac baatiya iyo marada salaada intaasan ka dhaqaya intaasan rinjiga ka saaraya marka ka saartid waxaad la dhaqi kartaa dharka cadcad waxaad la dhaqi iyaga isku dhaqi kartaa markay rinjiga leeyihiin waligood iskuma dhaqi kartaa isku dhaqdo wax il dilan bay noqdaan marka sidan aan sameynaya waxaan soo qaatay 3 bahal oo maaragtay 3 bahal aan ku kala radinayo maradii salaada iyo labadii dirac baatiga yelowga iyo greenka waxa weeyaan waa diruuc baatiya marada kale oo maaragtay cadaanka iyo greenka waxa isku jirtaan ayadana waxa weeyaan waa marada salaada insha Allah mar kalena waxaan idin la wadaagi doonaa hadii la karaali noqdo sida dharka salaada dharka Ilaahay lagu hor istaagayo sida loo qorxisto insha Allah ana believe gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan inay gabdho maartay ma sha Allah yihiin dhaxdooda wada xiran tahay hadana waxaan macluumaad aan ka faa'iiday ayaa raba insha Allah marun baan la wadaagay hadii Ilaahay raali ka noqdo marka waxaan sameynayaa sida dharka marka fasakha looga saaro hadalkayga badan yaana la teginay waxaan sameynaysaa dharka wada radinaysaa marka radisid markasta waad soo noqonaysaa waad ka maroojinaysaa hadaa doontid 4 saacadood 5 saacadood baad u deynaysaa waad ka maroojinaysaa ilaa iyo maradu inta biyo cad ay soo deynayso waad ku wadaysaa biyaha waad radinaysaa waan ogahay biyo yacan badan ba khasaaroobaya oo dhowr jeer baad ka qubaysaa oo maroojinay oo ka qubaysaa hadana waxa ka sii daran mar walba aad dharka dhaqdid wasaqdaas ay ku fasakhaas dharkaagu kaaga soconaya oo maradana isha ka dilmanaysa laakiin sidatan maartay Ilaahayna maartay dambi nagama siiyo biyahan khasaaroobaya laakiin markasta waad maartay ku celcelinaysaa ilaa ay rinjigu ka baxo biyahaas aan ku shubayo waan ku radinayaa waan u deynayaa laba habeen inta doontid adiga intaad isleedahay maradaas biyuhu way kaga dhamaadeen waad markasta waad ka maroojinay biyihii baad gacantaada saa ugu qaadi hadaa aragtay biyihii wali ay rinji leeyihiin waad wadaysaa hadda maryahan aan radinayo marada salaad maryaha hadda intan waa marada salaada ugu rinjiyar ugu fasakh ugu rinjiyar labada kala ka badan lagana sii badan oo badanaaba dharka cascas ba aad ugu badan marka maasha Allah tabaaraka raxmaan waan wadaya ilaa ma inta aan biyihii oo cad ka arkay hadda waa kaasa clipka igu dheeraado waan iska tuuray kuwa aan biyihii oo wixii wasakhdii la intuu sayay laakiin kan waa markii ay ka dhamaadeen
وانا كحماي كي هورينا انت سو ويغا go'ay ma aqaan meelo ka baxay marka ma sha Allah waa kaasa markaas subhanallah gacanteeduna aad buu qaawan tahay ilaa dambigeeni ka waalidkeen baa dhaafo markaas saasaan maaragtay ay arrinjigi wasaaray markaan arkay biyihii cadaan yihiin wayd yihiin oo biyo waydi ka soo baxayaan meeshii oo dasaas ma sha Allah kiliino waan marooji waan ka wada marmaroojinayaa saddexdoodaba isla meeshaas baadka ay ku jiraan ayaan ku dhaqay golofiskaas oo yellow iyo black iyo bluega waa ka adag ka hore waa ka iska caadiga ah wax laama lagu kilin gareysto ama dhakhaatiirtu isticmaashaan ama ilmaha pampers looga bedesho badanaana golofisadana waxaan u xidhaa waxaan ahay dadka maartay sensitive ka ah oo biyaha markaan biyo badan gacanta la galo gacmuhu way qalalaan oo mado kale haday taabato way dhaawacdaa marka waxaan sameynayaa golofisyadaas waaweyn oo adag baan maartay ku dhaqay ما شاء الله تبارك الرحمن وكواس وانصول على سريرت الدبقداش دان دقينتان لالابي ساسي وقروح بدنادين waxaad markan oo kale la dhaqi kartaa dharka white-ka ah dharka caadiga iyagoo iyo wixii la mid ah isku wada dhaqaysaa wax dambe oo rinjiye ma jiro laakiin marka rinjigu ku jiro markasta isha ka dilmaysa fool xumo maradii oo bahadilan maradii bahalkaysan waa maryaha kan baatiga iyo ay maro oo rinji baxda reer waqooyigu waxa u yaqaanaan shiid bay u yaqaanaan koonfurna baati baa la dhahaa magaca baati baa anigana hadda aan barto la qabsaday kaasaana fiican shiidka qofku markuu waa caydha weeyaan marka deyntaasaan jeclaystay inaad la wadaago wixii fikir ah iyo wixii maaragtay warbixin hoos igu soo qor insha Allah